nin dadkii hore ka mid ahaa ayaa waxa uu soo dhinac fariistay Imaam Xasan al-Basri. Ninkii waxa uu ku yiri yaa Imaam, Allah waxa uu kitaabkiisa Quraanka Kariimka ku sheegay inuu ciqaabi doono qofkii caasiya. Anigana muddo badan ayaan caasiyay, mana arag ciqaabtiisa ay sidee wax u jiraan. Imaam Xasan al-Basri waxa uu ahaa caalim xikmad iyo dulqaad u dheer tahay, kamana waalinay si cajiib ayuu ugu jawaabay oo wuxuu yiri, wiilkaygiiyo miyaad ogtahay in Allah uu ku ciqaabay adiguna aadan ka warqabin? Wiilkii ayaa ku yiri, oo sidee ku dhacday ciqaabta? Sootaan ku leeyahay leema ciqaabin. Imaam Xasan al-Basri ayaa ku yiri, dhageyso, miyaanan laga dhex saarin dadka la munaajooda rabbigooda? Miyaanay ku soo marin maalmo badan oo aadan marna kala furin Quraanka Kariimka? Habeeno badan miyaadan iska jiifin adigoo aan qiyaamul leyl u istaagin? Carabkaaga miyaan laga ilaalin xuska Alle, magac, xoolo iyo shahwaraadin miyaan lagugu imtixaanin? Cibaadada miyaysan culays kugu noqon? Beenta, xanta, isku dirka miyaan lagu fududeynin? Aakhiro miyaan lagu ilmaamsiinin? Adduunkana lagaaga dhigin hamigaaga ugu weyn? Xilliyo khayrka laga faa'iideysto miyaanay ku soo marin oo aadan ka faa'iideysan, sida bisha Ramadaan, 6 Shawaal, 10 Dilxijje? ciqaabta Alle tan ugu yar waa in laga baabiyo maalka, awlaadda iyo caafimaadka. ciqaabta Alle tan ugu weynna waa in laga jeediyo qalbigaaga, lagana tiro ku xirnaanshaha Allah subxaanahu wa tacaala iyo xusuusta aakhiro. haddii uu Allah doono inuu ku ciqaabo, wuxuu kuu furayaa dhaldhalaalka adduunka, wuxuuna kaa daboolayaa xusuusta aakhiro. maal tiro badan ayuu kugu arsaaqaa, laakiin waxa uu kaa xarimayaa macaanka cibaadada. Wiilkii waa uu iska ooyay, waxa uuna dareemay inay wax weyn ka maqan yihiin, xaqiiqdana ay tahay inuu ciqaaban yahay. Wuu toobad keenay, qaatumo fiican ayuuna ku dhintay.